wargeyska al-ahraam ayaa wuxuu ku bilaabaya diima diina sawsaan iyo raasaan oo ilmo shanaadi ah waa mataano 18 jir ah oo u dhashay Falastiin in ay afartoodu hal mar wada galaan riximka hooyadood ma aha waxa kaliya ee ay ku midoobeen balse markii ay ifka yimaadeen waxa ay mar kale ku mitaanoobeen waxyaabo badan oo nolosha kamida waxa kamida natiijadii ay ka heleen imtixaanada dugsiyada oo inta badan dhibco isku mid ah ama aad isugu dhow oo waliba kaalmaha ugu sareeya ay ka qayb galeen waxa kale oo ay iskaga mid noqdeen xiisaha ay u qabaan barashada diinta iyo da'da isku midka ah ee ay ku xifdiyeen quraanka kariimka ah arrimahaas dheeraadka u ah ayaana sabab u noqday qisadooda ay soo jiidatay dareenka dadka ku nool tuulaha ay degan yihiin ee Umuduuba oo ku tala koonfurta magaalada Qudus warfidiyeen ka socday telefishinka Al Jazeera oo mataanaha kala qayb galay damaashaadka farxadooda natiijada imtixaanaadka dhamaysashada dugsiga sare oo ay markaana afartoodu dhibco isku dhow kaalmaha ugu horeeyay ku galeen ayaa arkay natiijada cilceliska guud ahaan ee imtixaankoodii oo noqday 93.9 2.9.1 1.9.4 iyo 1.9.1 oo sida ay u kala horeeyeen ay u kala heleen mataanaha hooyadood oo 55 jir lagu magacaabo Najaax al-Shanaadi ayaa sheegtay in hablaheedu ay muuqaal ahaan abuur ahaan iyo dabeecad ahaanba isaga mid yihiin iyo xitaa in ay isku dabeecad waxbarasho leeyihiin tusaale ahaan ay mar waxa ay sameeyaan naqtiinka casharada iyo ka shaqaynta waajibaadka dugsiga iyagoo sidoo kalena xiisaynaya takhasus waxbarasho isku mid ah hooyo Najaax oo la weydiiyay sababta ay u maleynayso in laba hablood oo kamid ah afarta mataanood ay natiijo isku dhow oo ka hooseysa labada kale keeneen imtixaanaadka dugsiga sare ayaa ku kaftantay in labada hablood ee sii sareeyay oo diina iyo diima ah ay naaska jaqsiinaysay 4 sano iyo badh halka labada mataanood ee Sawsaan iyo Rasaan ay sanad kaliya jaqsiinaysay naas hooyo Najaax waxa ay sheegtay in sababta kala sareyntoodu waxbarasho ay taas u maleynayso mataanahan afarta ah ayaa muuqaal ahaan ay adag in la kala gartaa sida awgeed markii ay yaryaraayeen hooyo Najaax waxay mid kasta gacanta ugu xidhi jirtay dun midab gaar ah leh oo ay ku calaamadsato laakiin maanta waa ay kala taqaana oo codkooda ayaa ugu weyn oo ay si sahal ah loogu kala garan karo hooyo Najaax waxay sheegtay in mataanahani intii ay caloosha ku jireen ay dhakhaatiirtu kula taliyeen in laba kamid ah ay iska soo rido iyaga oo ku sababaynaya in ay leeyihiin ceeba abuur oo aanay la noolaan karin laakiin way diiday taladaas nasiib wanaagna hablaha oo 7 bilood ku dhashay ayaa dhammaantood caafimaad iyo badqab ku dhashay hooyo Najaax waxay sheegtay in ay hore u haysatay 6 wiil oo aan mataana ahayn sida awgeed ay ku faraxday in ay hal mar 4 hablood wada dhashay